magaalada Istanbul waxaa laga daafuray cisbitaalkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ay leeyihiin kaasoo loogu magac daray Mandeeq Hospital iyadoo xafladda daafurka lagu marti qaaday madaxweynaha Hirshabelle safiirka Soomaaliya ee Turkiga madaxweynihii hore ee Puntland xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha jaaliyadaha Carabta iyo xubno ka socday wasaaradda caafimaadka Turkiga ugu horeyntii waxaa goobta hadallo ka jeediyay maamulaha Mandeeq Group Ibrahim Maxamed waan ku faraxsanahay dadaalkii madax badan oo xagga fadhida ay Soomaaliya ka soo bilaabeen ay ugu horeysay dhaxgalka walaalaha Turkiga iyo Soomaaliya hadii safaaradda ama madaxda joogto ay horay ahaayeen siyaasad ahaan in la isdhaxgalay maanta waxaan rabnaa inaan idin cadeyno ganacsatadii iyo Turkidii waxaa la isku dhaxgalay qaab ganacsi oo aan rabno message bilow ah ee aan rabno inaan gaarsiino oo soo ku ekaadeen gudaha Turkiga oo ku ekaado dalka uu gaaro sidoo kale maamulaha isbitaalka Masar Jineeda ayaa dhankiisa madasha ka hadlay fakat İbrahim Bey ile İsmail Bey bu konudaki hırsı ve isteği beni onlarla birlikte çalışmaya itti. waxaan isbaranay Ibrahim Bey iyo Ismail Bey waxay sheegeen inay rabaan inay inta isbitaalka furaan markii ugu horeysay markay ii sheegeen inay rabaan isbitaalka ka furaan run ahaantii waxaan ka qabay fikir khaldan qof ajnabi inuu dalkayga isbitaalka furto laakiin Ibrahim iyo Ismail markay fikirka ii sheegeen waxay rabaan ii sheegeen iga qanciyeen fikir aad u qurxoon weeyaan ogaaday safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Aydid iyo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas ayaa soo dhaweeyay in Soomaaliya ay dalkan ay ku yeelato goob caafimaad hay'adda la furay 2019 maantana waxaa la furayaa business center-ka aad aragteen iyo isbitaalka hadda soo tusay suuqeena iyo u wanaagsan yahay ayay sameeyeen marka waxaan leenahay haddii siyaasaddu noo fariisato noo degto awooddaas iyo maskaxdaas capacity-gaas dhaqaal sameynta Soomaalidu ay leedahay waxaan rajeynayaa dalkeenu inuu wanaagsanaan doono inuu horumari doono ayaan rajeynayaa waxaan rabnaa haddii aad xamar tagteen gobollada kale aad tagtaan aad laftigeeda isbitaalkan mid la mid ah Soomaaliya ay geysaan oo ka dhisay waan u mahadcelinayaa dhalinyarada maalgelintan samaysay dalka Turkiga sida raggiga horeeyay u sheegeen wadanka Turkiga waa wadan la maalgashan karo waa wadamada adduunka ugu horeeya dhinaca maalgashiga waliba gaar ahaan sektorka caafimaadka laga soo bilaabo markii koronahani bilaabmay runtii waxay ka gaadheen adduunka meel aad u weyn bay ka gaadheen waxaan rajaynaynaa in aad Mandeeq Group aanu xafladda ku xigta aanu Soomaaliya meel ka mid ah kaga soo qayb galno istaalo noocan oo kale aad ka furtaan gabagabadii waxaa munaasabadda soo xiray madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe in ganacsato Soomaaliyeed ay maanta halkaan ugu casuunto ee aan soo aragnay runtii ganacsi maaragtay aad u ballaaran maalgashi ballaaran oo ay sameeyeen hadday tahay maqaayado iyo hadday tahay mool iyo hadday tahay isbitaalkii aan maanta xiriirkiisa aan u joogno runtii waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin waxaad tihiin dad geesiyaal ah dad u bareeraya tihiin inay dadkooda iyo maaragtay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ay gaaraan Salman Jamal Said Universal Istanbul.